Fanaanka lagu magacaabo Qadar Kiyo oo ka mid ah fanaaniinta caasimadda dalka ee Muqdisho isla markaana heese kala duwan ku soo qaaday ayaa markaani waxay isku dhaceen Khalid Kaamil oo ka mid ah fanaaniinta Soomaalida maadaama Qadar Kiyo iyo sidoo kale Dayax-Dal Nuurshe muddo sanado ay kala aamusnaayeen inkastoo lagu guuleystay in la heshiisiyo haddana mar kale ayaa dagaalkan cusub waxa uu ka dhex qarxay Khalid Kaamil iyo Qadar Kiyo kuwaasi oo dagaalkoodu ka bilowday aroos isla markaana ay ku sugnaayeen howl weyn oo ku yaala caasimadda dalka ee Muqdisho isla markaana waa hoolasha ugu waaweyn ee lagu qabto aroosyada iyo fantasiyaha arooskan oo wada kulmiyay fanaaniinta Qadar iyo Khalid Kaamil ayaa waxay iskugu dhaceen dhanka iyo weliba DJ-ga oo heese kala duwan midba midka kale u saarayay ayaa markii dambe intii ugu badneed mikrofoonka waxaa qaatay Khalid Kaamil sidaa daraadeed waxaa ka xanaaqay Qadar Kiyo oo markiiba danshay guud ahaan heesihii laga daaray hoolka dadka ku sugnaa hoolka iyo sidoo kale caruusada iyo caruuska ayaa aad ula yaabeen dhacdada ka dhacday bartamaha hoolka laakiin dad badan ayaa ku soo xumeen Qadar maadaama lagu qanciyay in Qadar waqtigiisa uu qaadanayo si lamidana Khalid Kaamil heesihiisa uu qayb ka qaadanayo dadka badi ayaa waxay intooda badan ku sifeynayeen inuu Khalid Kaamil intiisii ugu badnaa ku bahdilay Qadar Kiyo kaasi oo badi ugu magac dareen Qadar iyo Khalid waxa magac dheer caasimadda markii la joogo Qadar heesaha iyo sidoo kale inkastoo laba fanaaniin oo dhalinyaro ay yihiin haddana heese kala duwan ay soo qaadeen arrintan ayaa hadda waxay noqonaysaa dagaalkan ka dhex qarxay Qadar iyo sidoo kale Khalid Kaamil oo horaantii saaxiibo dhow u ahaa jiray inkastoo aadamaha markii wax la iskugu daro ay dagaalkooda ka bilowdaan maadaama labada fanaan loo soo kireysta bartamaha hoolka caruuska iyo caruusadana ay doorteen in arooskooda ay ka ciyaaraan heese kala duwan ay u qaadaan meeshii farxadda badan laga sugaya ayaa ku dhowaad 30 daqiiqo waxay qaadatay in la xalliyo labada fanaan maadaama ay gaari rabtay inay isku gacan qaadaan inkastoo lagu guuleystay inaysan isku gacan qaadin haddana saaxiibo badan oo meesha ku sugnaa ayaa soo kala dhex galay sida uu la wadaagay saaxiib ka mid ah saaxiibadii ku sugnaa hoolka isla markaana xogtan ii soo diray ayaa qayb ka ahaa dhalinyaradii ku sugnaa hoolka halkaas ayay hadda dagaalkooda waxaa ka bilowda Qadar iyo weliba Khalid Kaamil ayagoo qaarkood erayo xanaf la iskugu jawaabayo barta Instagram-ka tan ayaa waxay noqonaysaa fanaaniinta muddooyinkii dambe caasimadda markay imaadaan hoolka fantasiyaha ama heesaha ama sidoo kale aroosyada ee lamaanayaashu ay usoo doortaan in heese ay soo qaadaan ayaa hadda waxay noqonaysaa in intooda badan lamaanayaasha markay rabaan inay wacdaan fanaan oo keliya waxay noqonaysaa in hal fanaan oo keliya goobtay ku casuumaan si dagaalkoo u yaraado maadaama midba midka kale ay xurguf dagaal kala dhexeyso tan waxay noqonaysaa dagaalka ka dhex olansanayo Khalid iyo Qadar